السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنالka daawaneysaan waa Alnuur Official. Haddaad ku cusub tahay fadlan saar subscribe kanaalkan riix si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyaasha soo dhigno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا maanta waxaan idin wada ninkii ugu foolxumada badnaa sanadkan adduunka. tartanka foolxumada adduunka oo sanad walba lagu xuso dalka Zimbabwe ee qaaradda Afrika. si weyn dalkaas looga xiiseeyaa ayaa waxaa ku guuleystay Mzee Sere oo 42 jir ah, kaasi oo loo aqoonsaday shaqsigii ugu foolxumaa ee dalka Zambia. sidaasina loogu abaalmarin lacageed oo gaarayso 500 oo lacagta dollarka ah. inkastoo uu abaalmarintii tartankan uu muran hareeyay markii taageerayaasha ninkii tartanka laga qaaday ee ahaa ninkii 3 sano ee u dambeeyay haystay koobka foolxumada ee dalka Zambia. taasi oo keentay muran iyo buuq iyaga oo ku doodayo in ninkii ku guuleystay uunan u qalmin in la abaalmariyo maxaa yeelay muuqaal ahaan ma foolxumo, laakiin balse foolxumadiisu laga garanayo markuu afka furo. tartanka sanadkan oo ahaa kii afraad ee foolxumada Zambia ama Mr. Ugly ayaa waxaa ku guuleystay Mr. Mzee Sere oo 42 jir ah, laakiin William Mzee oo koobka 3 sano ee u dambeeyay qaaday iyo taageerayaashiisa ayaa ku andacooday in ay istamarin dhacday, iyaga oo ku doodayo in ninka sanadkan qaaday koobka uu u qalmin in uu qaado koobka. $500 ayuu helay Mr. Sere, waxa uuna waqtigan ku dabaaldegayaa isaga iyo qoyskiisa tuulo ka baxsan caasimadda Kampala ee dalka Uganda, isaga oo dareemayo farxad iyo reereyn aad u badan. si kastaba dadka qaar ayaa u arka in uu foolxumo badan yahay, laakiinse isaga waxa uu isku arkaa in uu yahay hibo Alle siiyay.